قبيل كدافنو درقنا أين دارنو عذر كأن دماينو هدي درق لدونو وآن دبلو أكيسن وأين ميل دعديدنو إن شاء الله وفرت تاكتو أيان بيدو مع أمر دوما بيدو مع دارو ميكروفوكا كار عن دارين عن سوداء ما تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ومع المسجد وتاريخكم بكرة سيدنا يتمنى بشر ورجيت بعد لبدا كل يتمنى ذاك كان ولبي يتمنى بشر كواد كل أفر بخمسة إلى هجرية ساعد ولبي يتمنى يقدر دقيقة مرة يوضع داود يعيش شرفت له كسوق الجناش أكون هنا الصوماليين iyo dhammaan madaxda ururada kala gedisan ku soo dhawaada madasha ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed oo ay maanta idinku diyaariyeen dad cilmiyeed ciwaankeedu yahay haybta iyo wadaniyada iyo xalka u yahay xalka Soomaaliya taasoo ay idinku soo gudbin doonaan aqoon-yahano Soomaaliyeed ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed xafiiskiisa Khartoum ayaa idin soo diyaariyay nidaamdan aad ka quruxda badan ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed waa urur ka mid ah ururada wadaniga ah ee Soomaaliyeed kaasoo ay ku midaysan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo hable iyo wiilal badan kuwaasoo kasoo kala jeeda gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah waxa ay u midoobeen waa waxa qabashada ummadda Soomaaliyeed iyo dagaalanka qabyaaladda iyo isfaquuqa halkudhigoodu waa badbaadinta jiilasha cusub iyo diyaarinta halkii ay ku noolaan lahaayeen jiilasha mustaqbalka dhageystayaal ku soo dhawaada madasha ururka jiilka cusub dhageystayaal daawadayaal ku soo dhawaada madasha ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed inta aynan guda gelin barnaamijkeena oo maanta qodobo aad u xiiso badan aad ku maqli doontaan bal aan guudmar yar idinkugu sameeyo taxanaha jadwalkeena maanta dhageystayaal daawadayaal marka hore waxaad maqli doontaan aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaa inoo xigi doonaa hadduu eebeedmo taariikh iyo faahfaahin kooban oo ku saabsan ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed dhanka kale dhageystayaal iyo daawadayaal kasoo qaybgalayaasha sharafta leh ee barnaamijkan waxaa intaa kadib inoo bilaaban doona dood cilmiyeedka oo ay maanta ku sharafnay oo ay martiba u yihiin aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee kale ah Dr. Fawzi Maxamed Baaro Dr. Cabdiqaadir Xilsi Siyaad Maxamed Dr. Maxamed Rashiid Cabdisamed iyo Dr. Xuseen Bashiir Sheekh Omar inta kadib dhageystayaal waxaad maqli doontaan
ama daawan doontaan falanqeyn iyo faallo ku saabsan madasha ama dooda. intaa kadib waxaa jiri doonta waqti furan oo ay kasoo qaybgalayaashu ay fikirkooda ku dhiiban doonaan hadduu eebeydmo. intaa kadib natiijada iyo qodobadii laga dhawaajiyey intii ay socotay dooda ayaa si kooban u maqli doonaan dhegeystayaal. intaa kadib waxaa inoo bilaaban doona hadduu eebeydmo qodbadihii kala duwanaa ay madaxda halkan kasoo qayb gashay ay kasoo jeedan doonaan hadduu eebeydmo. sidaas ayay taxalil ugu ahaan doonaa barnaamijka. waxaana ugu dambeyn aad maqli doontaan aayadaha qur-aanka kariimka oo kusoo agmeeri doona barnaamijkeena maanta. dhanka xiriirinta waa anigoo maxamed ismaaciil sheekh cumar khaatami, gudoomiye ku-xigeenka ururka jiilka cusub ee soomaaliyeed. xagga borotokoolka waxaa inoo qaabilsan maxamed daahir cabdulle oo ah xubin ka mid ah ururka jiilka cusub ee soomaaliyeed golaheeda shuurada iyo kooxdiisa. intaan aan si toos u gudagalna barnaamijkeena maanta, inta kadib aan ku furanna aayadaha qur-aanka kariimka oo inoo aqriyo cabdullaahi ciise heybe. بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ururka jiilka cusub ee soomaaliyeed waxaa uu soo dhaweynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan iyo madaxda iyo ururada kala duwan ee maanta halkan martida inoogu ah. si qaas ah ururka jiilka cusub ee soomaaliyeed waxaa uu soo dhaweynayaa madaxda midowga ardayda soomaaliyeed ee suudaan, raabidada hablaha soomaaliyeed ee jaamacadda afriqiya, golaha ardayda qaranka soomaaliyeed, jimciyadda saxafiyiinta soomaaliyeed ee suudaan, golaha dhalinyarada soomaaliyeed, naadiga saxafiyiinta soomaaliyeed ee suudaan, golaha warbaahinta soomaali carbeed ee suudaan. dhegeystayaal, daawadayaal, kasoo qaybgalayaasha sharafta laho markana kusoo dhawaada faale iyo taariikh kooban oo ku saabsan ururka jiilka cusub ee soomaaliyeed oo inoo soo jeediya xogayaha guud ee ururka jiilka cusub ee soomaaliyeed ahna xubin ka mid ah golaha shuurada ee midowga ardayda soomaaliyeed ee suudaan. xogayaha guud waa cabdinaasir maxamuud xasan. kusoo dhawaad gudoomiye.